waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno mushkiladda ka khatarta badan fayraska corona ee caalamka soo wajahday taasoo ah qisada dhagaxa la sheegay inuu ka soo dhacayo samada sare oo duqayn doono dhulka aynu ku noolnahay waxaana aynu faahfaahin doonaa qaabka uu ku soo dhacayo dhagaxaasi xajmigiisu inta uu leegyahay xawaaraha uu ku socdo xilliga uu hordiyi doono dhulka iyo cidda ka warhaysa qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cabsi badanihiiyow cadaabiye jannaalow ciirdarroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow tan iyo markii ilaahay keenay dunidan korkeeda waxay aadamuhu ahaayeen kuwo loogu ballanqaadayey inay xilli dhow gaadhi doonaan dhammaadka adduunyada iyagoo bulshooyinkii u dambeeyey ee aynu inagu ka mid ahayna goobjoog u noqdeen dhacdooyin badan oo dhammaadka dunida calaamado u ahaa dhammaadka oo ahaa mid xilli kastaba ha gaadhsiisnaadee kollayba iman doona oo aanay ilaahay mooye cidina hubin xilligiisa kama dambaystaa xilligan aynu ku jirro oo kalena in badan ayaa ku qanacsan dhammaadka dunida marka ay ka qiyaas qaataan sida uu caalamkii dhammaa ee camirnaa habeen iyo laba gudahood isugu beddelay mid shaqada keliya ee ka socotaa ay tahay tirinta dhimashada iyo bukaanka uu sababayo fayraska corona dhammaan dalalkii caalamkuna ay dadkoodii xayiraad ka saareen dhaqdhaqaaqa dhaqaalihii caalamkuna dhulka galay xilli ay haddaba dadweynihii caalamku mushkiladaha la tacaalayaan ayaa waxaa soo baxaya oo la maqlayaa dhawaaq kale oo kan taagan ka khatar iyo xabsi badan waana saadaasha ku saabsan inuu dhagax weyni ku soo dhici doono dhulka aynu ku noolnahay kaasoo geysan kara khatar aan cidina maskaxdeeda ku soo dhacayn xilli kasta dadkii dunidan ku noolaa waxay saadaalinayeen dhammaadkeeda haba ugu badnaadeen dadweynihii noolaa qarniyadii dhexe ee taariikhda milaadiguye iyadoo tusaale ahaan ay dadka mar aaminsanaayeen in dhammaadka dunidu ku beegan yahay sanadka 1730 taariikhda milaadiga xilliyo badan oo dambena ay hadba sanad qabsanayeen laakiin awoodda iyo ogaanshaha xilligaa ay dhacaysaaba ay gacanta ilaahay uun ku jirtay iyadoo allaha weyn ee koonkan abuurtayna uu cidduu doonana adeegsan karo oo askar ka dhigan karo maalmihii ugu dambeeyeyna ay saxaafadda caalamiga iyo hay-adaha qaabilsan sahaaminta hawada sare si weyn uga wada hadlayeen dhagaxa weyn ee ku soo jihaysan dhanka dhulka kaasoo balliciisa lagu sheegay ilaa 4 kilomitir duqayna doono dhulka dhammaadka bisha abriil ee aynu ku jirno 2020 sida ay digniinta ku bixisay hay-adda naasa ee maraykanka u qaabilsan sahaaminta hawada sare oo sheegtay suurtagalnimada in dhagaxa weyn ee meerahay uu dhulka soo gaari doono 29 bishan abriil 2020 xilli ay shabakadda warbaahineed ee Daily Express iyaduna ay baahisay digniinta hay-adda naasa ee ku aadan soo dhicitaanka dhagaxa weyn ee 4 kilomitira kaasoo haddii uu ku dhaco dhulkeenna sababi kara masiibo ballaadhan oo aan laga soo kaban karin tirtirana kara ilbaxnimadii aadamaha waana dhagaxa sannadihii 60meeyadii iyo 70meeyadii iyo 80meeyadiiba 2 jeer lagu arkay masaafo uu u soo dhowaaday dhulka iyadoo hay-adda naasana ay 20kii sannadood ee u dambeysayba ilaalo ka haysay dhagaxa oo qaabka meerayaasha oo kale u wareega samada waana dhagaxa marka uu ku soo dhowaado dhulka ku soconaya xawaare gaadhaya 32,000 kilomitir saacadiiba waana xilli ay meerayaasha hawada sare marna ku soo dhowaadaan dhulka marna ka durkaan maalin walbana ay ilaa 100 tan oo waxyaabaha hawada sare ka soo dhaca ahi ay soo gaadhaan dhulka kuwaasoo aanay badanaa isheennu qaban karin lana aaminsan yahay inay yihiin burbur ka dhex dhashay meerayaal isku duqeeyey hawada sare muddo dheer ka hor culimmada dhanka xidigiska iyo sahaaminta hawada sare waxay si joogta ah ula socdaan baa la leeyahay
googo badan oo ka mid a dhagxaanta meerayaasha ee hadba dhinac isu dabaguuraya, waxaana ay hay-adda naasa sheegtay inay xilligan diiradda ku hayso oo la socoto ilaa 20,000 oo meerayaasha samada heehaabaya ah si looga warhayo inay dhulka ku soo dhowaadaan. dhacdo loo arkayay inay tahay tii ugu horreysay ee nooceeda ayaa mid ka mid a kubadda cagta lagu ciyaaraa waxay duqaysay oo dusha kaga soo dhacday daaqadda muraayadda ee xarunta dayax-gacmeedyada hawada sare. taasina waa arrintii hadda ka hor la baahiyey qisadeeda ee ku saabsanayd in hawada sare laga helay kubadda cagta oo la waayey muddo 30 sannadooda ka hor. laakiin arrimahaas oo dhammi uma ekeen xaqiiqooyin, waxaase goor dambe xaqiiqda qisadaas soo bandhigtay hay-adda naasa ee sahminta hawada sare u qaabilsan dalkaasi Maraykanka, oo iyadu sheegtay in kubadda dhowaan loo soo celiyay xarunta caalamiga ee hawada sare. waxaana ay hay-adda naasa beenisay in kubaddaasi tahay mid sideeda bannaanba laga helay hawada sare, laakiin ay ahayd kubad hadiyad ahaan loo siiyey duuliyihii dayax-gacmeedyada dalka Maraykanka ka mid ahaa ee Alison Onisoko, iyadoo ay lahaayeen kooxda kubadda cagta ee dugsi sare oo ay inantiisa yara dhigantisay, kaasoo deris la ah xarunta sahminta hawada sare ee Lyndon B. Johnson. waxaana duuliya Onisoko ka mid ahaa 7 ceerbixiyeen ee ku dhintay shilkii dayax-gacmeedkii Challenger ee ku beegnaa bishii January sanadkii 1986, kaasoo qarxay wax yar ka bacdi markii uu goostay. qaraxa ka bacdina kubaddii waxaa dib loogu soo celiyey iskuulkii hadiyadda uu bixiyey, halkaasoo ay taallay muddadii 30 sannadood ahayd ee lasoo dhaafay. kadibna waxaa dhowaan kubaddii dib iskuulka uga soo qaaday ceerbixiyeenka kale ee Shane Bekro oo inankiisu dhigtay isla iskuulkaas, kaasoo u qaaday xarunta dayax-gacmeedyada hawada sare ee dalka Maraykanka isagoo ka wakiil ah ceerbixiyeenkii hore ee Onisoko. waxaana la arkayay muuqaallo iyo sawirro muujinaya kubadda oo dhex taala dayax-gacmeed hawada sare dhex maahaya. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cabsi badanihiiyow cadaabiye jannaalow ciirdarroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow.